asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan qodobada warkeena maanta aan idiinku haynana waxaa ka mid a shirka ka dhacaya wadanka jabuuti kaasoo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowladda somalilan xiisada ka taagan badda mediteraneanka taasoo udhexeysa wadanka turkiga iyo wadanka gariga qodob ayaa idinka haynaa daawadayaal kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan. Initiating System 1. System 1 loaded. waayahay mar kale kusoo dhawow daawaday qodobada warkaas oo faahfaahsan. taariikhdu maanta waa 2020 bisha 6 14 aan ku bilowno. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wafdi uu hogaaminayo iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaadhay magaalada jabuuti ee wadanka jabuuti. sidoo kale waxaa soo gaadhay ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya abiy axmed. shirka waxaa hogaaminayay madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geele. shirka gelinkii hore waxaa isa salaan iyo soo dhaweyn shirku laakiin wuxuu dib u bilaamay oo si fiican u bilaamay gelinkii dambe waxaana uu ka bilaamay qasriga madaxtooyada ee wadanka jabuuti. shirka waxaa laga hadlayay qadiyada ka taagan somalilan iyo soomaaliya taasoo soo bilaabantay waqti dheer soona socotay muddo ka badan 30 sano. haddaba midowgii lixdamaadkii ayaa laga hadlayay iyo dhibaatadii uu soo maray wadanka somalilan. haddaba khudbada ujeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo khudbada ujeediyey madaxweynaha farmaajo iyo sidoo kale waxaa khudbad jeediyey ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya abiy axmed. khudbadii ujeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wuxuu kaga hadlay dhibaatadii loo geystay buu yidhi gobolada waqooyi iyo xasuuqi ku dhacay iyo sidoo kale 200 oo xabaal wadareed oo laga helay wadanka somalilan. sidoo kale wuxuu sheegay in loo geystay xasuuq ba-an iyo sidoo kale in gardarro cad loo geystay ummadda somalilan taasoo u baahan buu yidhi in laga wada hadlo oo si dheer looga wada hadlo. haddaba shirku wuxuu bilaabmay maanta gelinkii dambe. sidoo kale waxaa soo dhammaaday fayskii koowaad laakiin berri ayaa dib loo bilaabi doonaa wadahadalladan u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya. waayahay haddaba madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray inay rajeynayaan wadahadal wanaagsan iyo afkarad taasoo dhici doonta berri. sidoo kale ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya abiy axmed ayaa yidhi aad ayaan ugu faraxsanahay shirkan ka dhacaya wadanka jabuuti. sidoo kale waxaa kulmaya somalilan iyo soomaaliya balse waxaan rajeynaynaa inuu noqdo kii lagu gaadho guul taasoo ah mid wax u tarta ummadda soomaaliyeed. iminkana eegna wadanka Greega. wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Greega Nicholas ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan badda Mediterranean-ka taasoo u dhaxaysa wadanka Turkiga iyo wadanka Greega. haddaba wasiirku wuxuu sheegay inuu Turkigu caadaystay dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo badda Mediterranean-ka. sidoo kale wadanka Turkiga wuxuu shidaal ka baarayaa badda Mediterranean-ka. wasiirka macdanta ee wadanka Turkiga ayaa sheegay inay bilaha soo socda ka soo saari doonaan shidaal badda Mediterranean-ka. wasiirku wuxuu sheegay inay xaq u leeyihiin Turkiga inay soo saaraan shidaal kaasoo ku duugan badda Mediterranean-ka. haddaba wasiirkani wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Greega wuxuu sheegay inay tallaabo militari qaadi doonaan haddii ay ka jawaabi waayaan midowda Yurub codsiga ee dareenkaas oo ahaa in laga qabto wadanka Turkiga. wadanka Turkiga wuxuu yidhi wuxuu caadaystay gardaradiisa taasoo ah inuu baadho dhul aanu sharci ku lahayn shidaal uu ka baadho iyo dhul aanu xaq u lahayn sidoo kale bad aanu xaq u lahayn. madaxweynaha wadanka Masar Cabdiraxmaan al-Siisi ayaa telefoon ka helay madaxweynaha South Africa Matalena. madaxweynaha wadanka South Africa Matalena iyo madaxweynaha wadanka Masar Cabdiraxmaan al-Siisi waxay ka wada hadleen xaaladda u dambeysay wadanka Liibiya. wadanka Liibiya wuxuu noqday meel ay ku dagaalamaan ama ay ku hirdamaan awoodo sida Turkiga, wadanka Ruushka iyo wadanka Imaaraadka Carabta iyo wadamo badan taasoo faragelin ku haya mid toosa iyo mid dadbaba wadanka Liibiya. haddaba sidoo kale waxay ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya wadanka South Africa iyo wadanka Masar iyo sidoo kale dhibaatada ka taagan biyo xidheenka Ethiopia iyo sidoo kale Masar iyo sidii xal looga gaari lahaa.
wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Tunisia Nuruddin sidoo kale wuxuu ka hadlay in xal laga gaadho kaasoo ah mid loo baahan yahay saacadan la joogo wadanka Liibiya wuxuu noqday goob dagaal taas oo ku hidamaan awoodo fara badan haddaba wadanka Masar wuxuu ku eedeeyay wadanka Faransiiska ciidamada laga tababaro wadanka Syria kuwaas oo calooshooda shaqaystayaal lala keenay wadanka Liibiya ayaan ka soo horjeednaa waxayna keeni kartaa buu yidhi aqoon xumo ka timaada mustaqbalka iyo wadankan nala jaara kaasoo lagu soo daabulayo calooshooda shaqaystayaal keeni kara dhibaato mustaqbal iyo mid iminka taaganba sida waxa yidhi madaxweynaha wadanka Masar Cabdiraxmaan Al-Siisi daawadayaal waxaan dhammaan qodobada ka helnay dunida daafaca caalamka wanaga intaan ku kulmi doono mid lamid waxaan kaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh